السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله نحمد ونصلي على رسول الكريم. إن شاء الله تعالى هذا نكسر هذا ولا لي ولا لكن محمد حسن وإذا كسر هذا سمكة أما الصومالي أكنيمي iyo casharadeenii inoo socday oo ku saabsanaa Windows 8 training oo Soomaaliga ku baxayay. insha Allah taala casharada way soo dabahaayeen haddana way sii socon doonaan insha Allah. waxaan ku jirnay control panel ama sida loo isticmaalo control panel iyo waxa ku dhex jira sidaan insha Allah soo baranay. insha Allah waxa inoogu dambeysay cashirkeennii ah default programming. haddana hore u daawan please go back cashirka soo daawo. maanta waxaan baranaynaa insha Allah taala uninstalling programs. macnaheedu waxa weeyaan sidii program aad ku shubatay computerkaaga looga tiro, مثلا Google Chrome oo kale ku shubatay ama Internet Explorer ama Microsoft Office. adiga wax program computerkaaga ku shubatay ama software ama cashir waxba computerkaaga ku dejisatay waxaas ugu tirtaa. maanta aan baranay insha Allah taala saan hore u baranay. marka ugu horeyso xagga start screen meesha laga galo right click ku dheh ama right click marka ku dhahdo xagga control pan click si xaggan ku soo baxay control pan. haddii saan shalay idin sheegay haddii aad san aragto مثلا view by large icons ama oo san view by small icons, don't worry, just go there and make it category. cashir kula socoto marka category ka dhigato xagga view by xagga uninstall programming click si. uninstall program wuxuu ku keenayaa computer waxa laga of course in kala bedelnaano waxaan meesha iigu jiro iyo waxaan kugu jiro waxa laga in kala bedelnaado. marka don't worry, waxa laga in programo badan ay kugu jiraan. aniga waxaan aragtaan in kaliya iigu jirto 1 2 5 1 2 5 shan programs inay ugu jirto ama shan softwares ama shan application iigu jiraan. hadi waxa laga yaabaa 10 ama 20 hadba qofkii ku xiran tahay inay kugu jirto marka meesha tagto. marka hadii aad doonto inaad iska tirtid mid inta kamid ah, mesela waxaan rabaa inaan iska tiro Google Chrome ama Internet Explorer ama whatsoever, just right click meesha click ku sii sorry I just click wrongly. marka click ku siiso xagga waxaad aragtaa wax la yiraahdo marka xagga waxaad aragtaa Google Chrome xagga korta click ku sii. marka click ku siiso xagga sar waxaad aragtaa uninstall ama ka tir computerka ama computer ka saar ama computerka ka shub. oo ku shubta moogtaad computerka ka shub weeyaan. marka diyaartina computerka ka shubto just click ku sii and then shaashada wax ku soo bixi doona waxa kaliya marta inaad tirtid haade sii wad. marka tan waxaan rabnaa inaan fiirino si kale oo ku fudud oo loo tiro مثلا programmada qaarkood haddii hoos soo dhigo haddii xagga start screen aan tago xagga programmi ii yaalo مثلا haddii aan hadda mail oo kale aan click ku right click aan ku siiyo half korta right click ku sii xagga waxa ka aragtaa uninstall tir programkan ama ka shub computerka. waxa laga yaabaa haddaad doonto meesha programmada badan kugu jireen wax badan ku save gareysatay haddii right click ku sii sida ayaga xataa dhinaca right click ah gacantaada midigta right click ku sii xagga hoos maarta ayadana uninstall. iska ilaali waxyaabaha qaarkood ku fududaadeen. waxa laga yaabaa qaarkood in program u baahan tahay iska tirto مثلا program muhiim ah computerka ku shaqeynayo haddii aad program iska tirto مثلا accidentally ama aad iska filanaynin si waxa jirto restore loo soo dhaho oo loo soo celiyo. insha Allah taala aydan waa baran doonaa casharada soo socda ku jirta. I hope in wax ka faa'iideen maanta insha Allah taala. maanta waxaan baranay seal uninstall programming ama sidii computerkaaga program looga tiro ama looga shubo. insha Allah taala casharada way isdabahay way soo socdaan oo ku maastan daawateen. wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.